عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan ummadda reer Puntland. Maanta wax rabaa baaq nabadeyn inaan u diro walaalahay Khaatumaland oo degan gobolka Sool. Saad ogtihiin maalmahan dagaal aad iyo aad u fool xun baa ka socday gobolka Sool oo laba beelood oo dhulbaanta ay isku dagaalayeen. Waxaan ognahay dagaalkaas foosha xun oo Khaatumaland ee ka socda oo dagaalkaas oo ah laba beelood oo dhulbaanta ka wada mid ah in ay dagaalkaas ay ka dambeysay dawladda foosha xun oo garow joogta oo Cabdulle Cali Gaaf. Waxaan ognahay Sool inaanaysan dekad lahayn, inaanaysan xeeb lahayn, inaanaysan meel hubka laga soo dejiyo aysan lahayn. waxaan kaloo soo ogaanay hubka in loo keeno ayl kadibna la geeyo garowga kadibna la geeyo Khaatumaland. waxaasna waxaa ka dambeeyay waa Cabdulle Cali Gaaf iyo Suucadde. waxaan ognahay Suucadde inuu ka soo jeedo beesha Harasame ama Baharasame oo la dagaalaysa beesha kaleeto oo qiyad la leeyahay. dadka halka ku dhimanaya waa dad Soomaaliyeed, waa dad walaalaheena, waa Khaatumaland meel ay maanta inaga jiraan malahan. annagu waxaan u direynaa baaq nabadeed inay joojiyaan waxaas foosha xun oo halkaas ka soconaya. taas waa taa saddexda nin oo ka hadlay arrintaas oo kaliya waxa waaye beeldaajaha beelaha Cali Salebaan, beeldaajaha Suuqron iyo suldaanka Carab Saalax Hernaale. nin kaleeto ama daarooda oo arrintaas ka hadlay malahan. dawladda Cabdulle Cali Gaaf waxay u jirtaa meelaha dagaaladu ay ka socdaan 120 kilomitir inay u tagaan oo ay xaliyaan iska daaya xataa kama aysan hadlin. waxa maanta dhulbaante isku baabiinaya oo isku leynaya oo rabo dhulbaante inuu baaba'o waa maamulka foosha xun oo garow jooga. maamul kale maahan. maamulkaas mar rabo xamar inay nabad ka dhacdo, galmudug inay nabad ka dhacdo, gobollada anagu aanu degan oo aan ka soo jeedno Bariland ama Bari inay nabad ka dhacdo mar rabo, Jubbaland mar rabo. meel uu rabo uma lahan ama ka ahayn tuulada garoowe ama degmada garoowe iyo tuulada qardho iyo tuulada Jariban. waxaan leenahay fadlan walaalayaal waa inaa ka waantoodaan dagaalka sukeeye dhulbaanta ama Khaatumaland. idinka maalin walba la sugan diraya ciyaalka maalin walba dhimanaya waa ciyaalkiina, ciyaalka garoowe jooga ama ciyaalka tuulada Jariban jooga ama ciyaalka tuulada qardho jooga nabad bay ku seexdaan, nabad bay ku soo kacaan. laakiin dadka maalin walba dhimanaya oo baaba'aya waa ciyaalka Laascaano jooga, Sool jooga, Buucama jooga, Talax jooga. taas waa taa. waxaan kale rabaa maanta inaan ka hadlo oo aan u sheego walaalahay Khaatumaland in aan anigu suubin doono maamul cusub, maamulkaas oo ah New Puntland. haddii aad rabtaan cadaalad iyo daacadnimo iyo wanaag iyo wax walba waa inaad ku soo biirtaan maamulka New Puntland. annagu waxaan suubinaynaa waa maamul cadaalada, waa maamul saxa, waa maamul xaqa, waa maamul dhinac walba cadaalad ka ah. 4 sano xukunka waxa qabanaya waa New Puntland oo beelaha Bari. 4 sano waxa xukunka qabanaya Barsingeli oo Xingarool. 4 sano xukunka waxa qabanaya Khaatumaland. 4 sano waaye. waa xukun cadaalad ku dhisan oo xalaal ah oo xaaraan aysan ku jirin oo loo siman yahay oo fair and balance ah. waxaan ognahay Khaatumaland cadabuus inuu faraha inuu ku sii daayay farowle inaanu san fiirinba kanule inuu hub iyagii inuu isugu dhiibo oo rabo dhulbaanta inuu baaboo. dhulbaanta waa beel weyn. dhulbaanta sidaas fudud kuma baabi'i doono insha Allah tacaala. weligiinba hub isugu dhiiba. dhulbaanta ma baaba'ayo waa qaran jira wuuna jiri doonaa insha Allah tacaala. dhulbaanta waxa marka aan u baqayaa inay New Puntland ay nagula soo biiraan oo uu hogaaminayo Mudane Cabdisamed Maxamed Galan. waa fair and balance waaye. waa maamul fair ah oo sax ah oo loo wada siman yahay. 4 sano xukunka idinka madaxweyne noqonaya, 4 sano beelaha Bari, 4 sano waxaan noqonayaa Barsingeli. insha Allah tacaala xukunkaas waa laga shaqeyn doonaa. nagu soo biir aanan ahayn idinku inaa maamul gooniya idinku aad leeyihiin waa inaa subsataan sida ugu qasiya badan. annagu u dulqaadan bayno dhulbaanta dhimanaya ama Khaatumaland oo maalin walba hub laysu dhiibayo. waxaan ognahay Sool inaanaysan dekad lahayn. waxaan ognahay meelaha dhulbaanta dagaal ama Khaatumaland inaan dekad lahayn. hubka ay maalin walba ay yani isku dilayaan yaa u dhiibaya waa dawladda tarfoosha xun oo Cabdulle Cali Gaaf uu hogaaminayo oo BMO yani la leeyahay ama lagu sheegayo BMO Puntland Mafia Organization. hubkaas Somaliland lagama soo geliyo oo Burco lagama keeno oo Hargeysa lagama keeno oo Togdheer lagama keeno. waxaan ognahay hubkaas inay ka soo gashay ayl kadibna garoowe kadibna Khaatumo iyo dhulbahante lagu laayo. taas wax aan u dulqaadanayno ma ahan. anagoo beelaha ka soo jeeda Bari gobolka Bari wax aan yeeli doonana ma ahan. arrintaas waa in insha Allah tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan loo galo loona dhameeyo.
أفر ننا إن شاء الله تعالى محكمة ICC International Criminal Court بان صار دونا كوا مدن عبدول على قاس أنا وقف لقادين ما يو لكن حق واحد نقول هي لا تقول لا حقوق دعي إنا كنت عوي لبو وأنا كل لي عبد الحكيم واسمه عابي وسيرك ما اسمه عابي تبيه بوليس بوساسو صدح وسوعد واسمه عابي وسيرك ورفافت وحانو هينا عديم أو وحنا أنكو هينا إنه يسوي هو كقاضي وبيجيس وجي بحر وسمع كان أفراد ووزير مالية حد هي بنتلان إنه لما من يقول وكدستي تنزانيا العقد حقيقي وكياني والعقد كوال كبري والعقد تكده إن شاء الله تعالى سيدا ودخ سيا بدن waxaan soo taagi doonaa maxkamad afar sano إن شاء الله تعالى خاتمان waxaan u baaqayaa inay nabad qaataan nabadda ayaa naas lagu leh xabad waa meesh ugu dambeysay khaatamo ina idinku dad walaalaha oo wada dhashay ina isdishaan oo niman tuuga oo garow jooga ay wax hub iyo يعني يسوق ديبان wax inay qabata khaatamo laanay ma ahan wax beelaha bari ay idinku fiirsan doonaan ma ahan إن شاء الله تعالى taas wata waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland meel walba ay joogaan inay wanaag fiiriyaan oo dulmiga iyo xaq darrada ay iska ilaaliyaan oo xaq u heliyaan maamulkan foosha xun oo leeyahay Puntland oo garow aan soo dhaafin ama BMO Puntland Mafia Organization waa maamul aan xaq ahayn oo aan cadaalad ahayn oo tuuga dad dano gaar leh baana wata oo anagu aan ognahay Soomaaliya ay og tahay إن شاء الله تعالى أفر تسرين محكمة بالصوص صار دونا وأنا اللي محكمة ذنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.